مروين إيه مدنيال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هبين ونكسن داوديال ملك السوء جوكتان waxaad ku soo dhawaataan wixii dalka iyo dibadda habeenkani caawin naga soo gaaray qodobada warka caawa ugu darkarana daawadayaal waxa ay kala yihiin madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa gudoomiyay kalfadhigii ugu horeeyay ee xukuumadda cusub hay'adda adduunka u qaabilsan ee qaxootiga HCR ayaa waxa ay sheegtay in beesha caalamka looga baahan yahay inay kordhiyaan dadaalka ay ku gargaarayaan dadka qaxootiga kuwaas waxay ahaayeen qaar kamid ah qodobada kala duwan ee warka ku daawanaysaan iyadoo uu shirgudoomiye uu ka yahay madaxweynaha jamhuuriyadda ahna gudoomiyaha xukuumadda mudane Ismaaciil Cumar Geelle fadhiga koowaad ee golaha wasiirada ee xukuumadda cusub ayaa maanta qabsoomay waxaana fadhigaas uu ka dhacay qasriga madaxtooyada waana fadhigii sagaalaad ee sanadkan waana kii koowaad ee qabsoomay kadib xukuumadda cusbeed ee dhawaan madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle uu soo dhisay madaxweynaha jamhuuriyadda ahna gudoomiyaha xukuumadda mudane Ismaaciil Cumar Geelle ayaa soo dhaweyn wanaagsan u rajeeyay xubnaha cusub ee xukuumadda waxaana uu uga waramay si tafaqiiran barnaamijka siyaasadeed ee uu rabo inuu ku hogaamiyo xukuumadda cusub waxa uu fadhigaasi uu ku soo bandhigay golaha xukuumadda cusub oo qorshaha uu doonayo inuu hirgeliyo iyo dadaalada dhinacyada hoos u dhigida saboolnimada oo lagaga hortagayo bidii awood kordhinta tababarada iyo shaqada waxa kale oo madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geelle oo carabka uu ku adkeeyay horumarinta dhaqaalaha qaranka oo ah arin mudnaan gaar ah siinayso xukuumadda bidii iyo ugu dambeyn qodobka kale ku saabsan xoojinta waxqabadka hay'adaha dawladda cadaaladda iyo maamul wanaagga madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geelle waxa uu wasiirada uu sheegay in loo baahan yahay in hawsha hore ka galaan si aysan u niyad jabin shacabka isla kolkaasina tusaan waxqabad iyo shaqo loo bogay dhinaca kale ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda mudane Cabdulqaadir Kaamil Maxamed oo isaguna uu madaxweynaha jamhuuriyadda dib ugu cusboonaysiiyay xilka ra'iisul wasaarenimo waxa uu fadhigaasi uu ku soo bandhigay xaaladda guud ee hanaanka isku soo dhaweynta iyo wada shaqeynta maamulayaasha dawladda iyo shacabka kadib shir saxaafadeedkii uu qabtay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle 24kii bishii aan soo dhaafnay ee Abriil madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geelle oo fadhigaasi ka hadlay waxa uu golaha wasiirada u sheegay in fadhigan uu yahay mid si cad u tilmaamaya shaqagalka xukuumadda cusub ee khamiistii aan soo dhaafnay la magacaabay taasi oo wax badan laga sugayo xukuumaddan cusub oo u badan dhalinyaro u saaxiiba khibrad iyo xirfad badan u leh wasaaradaha loo magacaabay waxaa la filayaa in ay la yimaadaan waxqabad hufan oo la tilmaamsado oo shacabka raali geliya
waxaana xukuumaddani cusub ay ka kooban tahay 24 xubnood kolka lagu daro ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda. xukuumaddani waxaa ku cusub 2 wasaaradood oo qayb ka ah dhismaha xukuumaddani cusub oo kala ah wasaaradda madaxtooyada u qaabilsan maalgashiga oo xilkeeda madax looga dhigay mudane cali geelle abubakar iyo wasaaradda arrimaha gudaha u qaabilsan ballaarinta maamulka oo iyadana loo magacaabay xamadu maxamed aramiis. waxaa geeska la xusud mudan in golaha xukuumaddani ay qayb ka ahayn wasaaraddii la odhan jiray wasaaradda qaabilsaneed iskaashiga caalamiga oo imika si buuxda qayb uga wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga oo dib loogu magacaabay ama dib loogu cusboonaysiiyey xilkii mudane maxamuud cali yuusuf wasiirka arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga. waxaa kale oo magaceegii la dooriyey wasaaraddii haweenka iyo qorshaha qoyska qaabilsaneed xidhiidhka baarlamanka oo imika ah wasaaradda haweenka iyo qoyska, waxaana xilkaasi loo magacaabay wasiir muumina xumed xasan. xilka xidhiidhka baarlamanka waxaa lagu mataaneeyey wasaaradda gaashaandhigga oo loo magacaabay mudane cali xasan bahdoon oo horey u ahaa wasiirkii warfaafinta boosaha iyo warisgaarsiinta. magaca xogeynta dowladda ee istaageersiga qaran ayaa iyaduna waxaa loo bedelay xogeynta dowladda oo qaabilsan arrimaha bulshada, waxaana xilkaasi loo magacaabay muna cusmaan aadan. waxaa xukuumaddani cusub ay ka kooban tahay 2 xogeeyo dowlo, 3 minister delege iyo 18 wasiir. madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geelle ayaa si diiran oo kaliya laaba ugu soo dhaweeyey hoolka martisharafka ee qasriga madaxtooyada xubnaha golaha wasiirada ee saaka fadhigooda ugu horeeyay iskugu yimiday. madaxweynaha jamhuuriyadda ahna gudoomiyaha xukuumadda mudane ismaaciil cumar geelle khudbadda koowaad ee fadhiga golaha wasiirada cusub waxa uu ku sheegay in rabitaanka dadweynaha ee geysiiyey guul doorashadii madaxtinimo ay uga dhigan tahay dadweyne raba in jamhuuriyadda Jabuuti gaadho meel sare heshana dhaqaale awood leh iyo maamul suuban. waxa uu yiri madaxweynaha jamhuuriyaddu sida tan: bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Mesdames et messieurs les ministres, je voudrais vous souhaiter à tous la bienvenue dans ce conseil des ministres qui marque officiellement l'entrée en exercice d'un nouveau gouvernement. dhammaantiin waxaan idin rajaynayaa soo dhoweyn wanaagsan fadhigani cusub ee golaha wasiirada oo astaan u ah howlgalka rasmiga ah ee xukuumadda cusub. natiijadii doorashadii madaxtinimo waxa ay ka turjumaysay baaxadda rabitaanka shacbiga jamhuuriyadda Jabuuti oo iyagu mar kale kalsooni buuxda isiiyey oona xaqiijiyay sida ay ugu xidhan yihiin qaranka. waxa aan ballan qaaday aniga oo horjooga shacbiga walaalahay ee Jabuuti in dalkeenu uu gaadho horumar oo cidna si gaar ah looga tegin. hoos u dhigida saboolnimada ka hordhiga kala qaybsanaanta bulshada waxa aniga ay yihiin hadafka ugu weyn. waxa aan ku rajo weynahay in ujeedadaasi aan gaaro anaga oo irkanayna tababarka iyo shaqada oo ah salka guusha.
inta aan ku jiro xilkaasi waxa aan qabaa in bulshadu ay iga dhaxasho dal isbedel uu ka muuqda oo leh dhaqaale awood leh oo ku tiirsan hay'ado tayeysan cadaalad wanaagsan maamul suuban dhismayaal casriyeysan iyo shacbi aqoon iyo awood leh oo gurta midhaha isbedelkaasi waxa aan go'aansaday in idinka aad igala qayb qaataan lab iyo dhidig hawshaasi xukuumadani cusub ee aad xubinta ka tihiin waxa ay hawsheedu tahay oo keli ah hirgelinta barnaamijkii siyaasadeed ee doorashadii madaxtinimo marwooyin iyo mudanayaal ogolaashaha shaqada wasiirnimo waxa aad doorateen inaanu ka gudubno caqabaha ogolaashaha sharaftaasi waxa ay dalbaysaa inaad ogolaatid waajibka ku saaran lab iyo dhidig oo idinka ah waa inaad maanka ku haysid danta guud iyo xilka lagu egmaday marwooyin iyo mudanayaal waxaad ogtihiin sida ay iga go'an tahay midnimada qaranka waxaanu dulqaadan karin kala qaybsanaan dhulka dhigtaa rabitaankeenna iyo mabaadi'deenna waxaan idinka wargelinayaa in xubin uu ka ahaan doonin xukuumadda shaqsi ku xadgudbay xilkaasi loo egmaday dhammaanteen waxaan u adeegaynaa qaranka waana hawl culus oo maalinla ah hawshani aanu hayno waxa ay dalbaysaa adeegsiga awoodeenna oo dhan sidii aan u gaari lahayn higsiga oo ah inaanu u shaqayno shacbiga kalsoonida ina siiyey ugu dambayn waxa aan idinka dalbayaa in sida ugu dhaqsaha badan aad hawsha u bilowdaan. Nous sommes tous des serviteurs du peuple souverain. Cette charge temporaire qui nous échoit est la plus lourde qui soit. Elle exige de chacun d'entre nous que nous allions au bout de nous-mêmes pour que nous puissions donner le meilleur de nous-mêmes pour ce peuple qui nous a fait confiance. Je vous demande donc de vous mettre au travail au plus vite pour ne pas décevoir. Je vous remercie. wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ahna afayeenka xukuumadda mudane maxamuud cali yuusuf oo saxaafadda la hadlay kadib markii uu ka soo baxay fadhiga golaha wasiirada waxa uu yiri wasiirku golaha wasiirada ayaa maanta isku gudmiday fadhiga ugu koobaad waxaana madaxweynaha jamhuuriyadda uu si diiran u soo dhaweeyay xubnaha xukuumadda cusub madaxweynaha jamhuuriyadda waxa uu ugu yeeray buuri wasiirada xukuumadda inay si dhab ah ugu shaqeeyaan qaranka sidii looga jawaabi lahaa baahida dadweynaha wasiirku waxa uu tilmaamay ugu dambeyn in madaxweynaha jamhuuriyadda uu ka hadlay kalsoonida shacbigu ay mar kale siiyeen iyo hirgelinta barnaamijka siyaasadeed ee doorashada madaxtinimo oo soo bandhigay madaxweynaha jamhuuriyadda. imarkana istuudiyooga waxaa nagu weheliya wariye maxamed daahir oo ka faalloon doona khudbadii madaxweynaha jamhuuriyadda uu ka jeediyay fadhiga koowaad ee golaha wasiirada cusub. maxamed haye waad mahadsantahay khadar. dhegay far waa digniin ka dambaynin sidaas ayaan kusoo koobi karayaa hadalka madaxweynaha jamhuuriyadda uu saaka u jeediyey wasiirada golaha wasiirada shirkan u horeeyey ee ay iskugu yimaadeen. digniin ka dambaysa waxa ay ku tahay ama aad ku garan kartaa waxa madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti mudane ismaaciil cumar geelle uu ku yidhi wasiirada dadweynuhu aanay aamineen ana idinkaan idin aaminin sidaasi daraaddeed kollahna ma ogolaanayo nin idinka mid ah ama gabadh idinka mid ahi in ay xilkeeda ka soo bixi weydo. waxa uu yidhi madaxweynaha jamhuuriyaddu sida aad u ogolaateen sharafta aan idin saaray waa in aad u ogolaataan in aad ka soo baxdaan xilka weyn ee aad dhabarka saarateen. isweydiinta warkaa waxay tahay madaxweynaha jamhuuriyaddu muxuu ugu celcelinayaa uu dadka farta ugu lulayaa wasiirada hadday tahay iyo hadday shaqaalaha tahayba. waxaad madaxweynaha jamhuuriyadda degihiisa ka qaydaya ama niyadiisa ka buuxsamay kalsoonidii buuxinayd ee ummadda jamhuuriyadda jabuuti sida ul iyo diirkeed ay u siiyeen bishii abriil 8 waxa taasi ay ka dhigan tahay oo uu yidhi madaxweynaha jamhuuriyaddu oo taa waxaad ku garan kartaa dadweynuhu halkii ay wax dhigeen buu yidhi madaxweynaha jamhuuriyaddu waa inaan wax gaarsiidaa meel ka hoosaysa ma dhici karto. dadweynuhu halkay wax dhigeen dadweynuhu waxa ay dalbadeen buu yidhi oo aan inaguna ka ogolaanay in ay waddankani uu haro maro kolkaa dadweynaha rabitaankoogii wixii ay inaga sugayeen waa in aan ka soo baxno ballanqaadadii aan u qaadnayna waa in aan fulinaa. xilkaasi waa mid aniga saaran buu yidhi waa mid aniguna idinka aan idin saaray oo u baahan
in aad igu garab gashaan oo waa sababta aan xilkaydii saar. madaxweynuhu waxa uu yidhi marka 5 sannadood imika aan qabanay kolka ay dhammaato waa in aan qaranka gacanta ka saaraa oo aan qaranka tusaa ama dadweynaha hor keeno oo ay arkaan waddan harowmaray, waddan qaran hodan ah, qaran dhaqaalihiisu u buuxo, qaran saboolnimada lala dagaalamay oo aynan dadku kala sarraynin ama isku soo dhowaadaan, oo dadka saboolka ah iyo dadka taanjiriinta aynan sii kala soconin oo aynan sii kala fogaanin. kolkaa madaxweynaha jamhuuriyaddu waxa uu yidhi wakhtigaasi waa in la helaa cadaalad aan la xamanin oo si buuxda hawlaheeda uga soo baxda oo dadka xilkooda xilkii la saaray si buuxda uga soo baxda. waa in la helo maxafiisyo dowladeed ama maamul dowladeed oo firfircoon. waa in la helay buu yidhi dhismooyin casri ah oo ummadda isku hayso. waa in la helo ummad caafimaad qabta oo cilmi ahaan dhisan. waxaasoo dhan marka laysku geeyo waxa ay ina saaraysaa in aan xilka si buuxda aan dhammaanteenba uga soo baxno. madaxweynaha jamhuuriyaddu waxa uu wasiirada u tilmaamay in waajibka keliya ee ay tahay in laga soo bixi ay tahay in barnaamijka madaxtooyada in si buuxda laga soo baxo. kolkaa waxaan odhan karayaa go-aanka khudbadda madaxweynaha jamhuuriyaddu uu maanta u jeediyey golaha wasiirada waxaa jirta buu yidhi madaxweynaha jamhuuriyaddu inuu hadalkaygu ku dhaco dhiga laab u daloola oo uunan ku dhicin dhiga laydh u daloola. mahadsanid maxamed daahir sida wanaagsan ee qaybtaasi aad uga falaqontay khudbadii madaxweynaha jamhuuriyadda. golaha raadioga waxaa soo gaaraya dhaqaalada hambalyada ee ka socda dhammaan odayga dhaqameedka 5 gobol ee dalka gudihiisa, kuwaas oo madaxweynaha jamhuuriyadda iyo xubnaha xukuumadda u rajeeyay inuu ku guuleysto hogaaminta qaranka. sidoo kale dhambaala lamida waxaa soo gaarsiiyey TV-ga qaran gudoomiyaha jaaliyadda Jabuuti ee magaalada Jidda ee caasimadda dalka Sacuudiga Xaaji Cabdilaahi Xaaji Yuusuf iyo gudoomiyaha unuga xisbiga RPP ee xaafadda Arxiba Jeylaani Xasan iyo sidoo kale gudoomiyaha unuga xisbiga Furuud ee xaafadaasi Arxiba Xumed Saciid. dhammaan dadkaasi oo dhan waxa ay madaxweynaha jamhuuriyadda iyo xubnaha xukuumadda ay u rajeeyeen inay ku guuleystaan hawsha hogaaminta qaranka. ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda mudane Cabdulqaadir Kaamil Maxamed ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay wafdi ka socda jamhuuriyadda federaalka ee Itoobiya. waftigaasi ballaaran waxaa horkacayay duqa magaalada Addis ee caasimadda dalka Itoobiya mudane Dariba Kuma. kulanka dhex maray ra-iisul wasaare Cabdulqaadir Kaamil Maxamed iyo waftigaasi waxa ay ka wada hadleen xiriirka iyo iskaashiga u dhaxeeya labada dal, gaar ahaan caasimadaha Jabuuti iyo Addis Ababa. kulankaasi ayaa ahaa mid jawi heer sare oo saaxiibtinimo ka muuqato ay ku soo dhamaatay, waxaana ka qayb qaatay xogayaha guud ee xafiiska ra-iisul wasaaraha. gudoomiyaha golaha baarlamaanka mudane maxamed cali xumed ayaa isaguna xafiiskiisa ku qaabilay wafdiga ka socda dalka Itoobiya oo ay umuudka ka tahay wasiirada gaadiidka Itoobiya Dameeshe Ambesa. waxa ay ka wada sheekaysteen arrimo badan oo dan u ah labada dal ee walaalka iyo saaxiibka intaba ah. fadhigaasi waxa uu joogay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta golaha baarlamaanka. isla wafdigaasi jamhuuriyadda federaalka ee Itoobiya waxaa ka mid ah duqa magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya. isla wafdigaasi waxaa xafiiskiisa ku qaabilay wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga mudane maxamed cali yuusuf oo ay ka wada sheekaysteen khibradaha dhinaca xidhiidhka horowdhiga caasimadaha Jabuuti iyo Addis Ababa. wafdigaasi waxa uu booqasho howleed ku joogaa dalka tan iyo maalintii Khamiistii aan soo dhaafnay, waxaana qasriga madaxtooyada ku qaabilay madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geelle oo ay ka wada hadleen xidhiidhka iyo iskaashiga u dhaxeeya labada dal ee walaalka iyo saaxiibka intaba ah. wasiirka gaadiidka iyo qalabaynta cusub mudane maxamed cabdulqaadir muuse xele ayaa isaguna saaka xafiiskiisa ku qaabilay wafdiga ka socda dalka Itoobiya ee hormuudka ka tahay wasiirada gaadiidka Itoobiya Dameeshe Ambesa. wafdigaasi waxaa ka mid ah duqa magaala madaxda Itoobiya ee Addis Ababa mudane Dariba Kuma, wasiirka cusub ee gaadiidka ee Jabuuti iyo wasiirka gaadiidka ee jamhuuriyadda federaalka Itoobiya. waxay ka wada hadleen xiriirka iyo iskaashiga u dhaxeeya labada dal, gaar ahaan dhinacyada qalabaynta iyo gaadiidka labada caasimadood. gudoomiyaha rugta ganacsi ee Jabuuti mudane Yuusuf Muuse Dawaale ayaa isaguna saaka xafiiskiisa ku qaabilay wafdigaasi ka socday dalka Itoobiya oo ay ka wada sheekaysteen dhinacyada ganacsiga iyo dhaqaalaha
u dhexeeya labada caasimadood ee kala ah Addis Ababa iyo Djibouti. guddoonka baarlamaanka ayaa u sameeyay xaflad sharafeed loogu talagalay in lagu tahniyadeeyo Marwo Safiya Cilmi Jibriil oo kamid ah xildhibaanada golaha baarlamaanka oo ku guuleysatay dhawaan xilka gudoomiye ku-xigeenka guddiga baarlamaanka midowga Afrika oo qaabilsan wadamada bariga Afrika. gudoomiyaha golaha baarlamaanka mudane Maxamed Cali Xumad ayaa si diiran u soo dhaweeyay Marwo Safiya Cilmi Jibriil kolkii ay soo gaadhay dhismaha baarlamaanka. soo dhaweynta xildhibaanada Safiya waxaa ka qayb qaatay xildhibaanada golaha baarlamaanka iyo shaqaalaha arrinta baarlamaanka ee Djibouti. Safiya waxa ay ku guuleysatay inay xubin ka noqoto baarlamaanka midowga Afrika iyadoo oo matalaysa degmadani ee Geeska Afrika. xafladaasi loogu talagalay tahniyadeeda Safiya Cilmi waxa ay tahay mid si gaar ah ay u diyaariyeen guddoonka sare ee golaha baarlamaanka ee dalkeena iyadoo oo ku guuleysatay inay ka mid noqoto ama xubin ay ka noqoto guddiga sare ee baarlamaanka midowga Afrika. hadal ee halkaasi ka jeedisay waxa ay u mahad celisay ugu horeyn gudoomiyaha golaha baarlamaanka iyo dhammaan xildhibaanada baarlamaanka dalkeena oo igu taageeray bay tiri inaan ku guuleysto hawshaasi laga igmaday golaha baarlamaanka midowga Afrika. waxaana ay tiri waxa aan kor u qaadi doonaa sumcadda jamhuuriyadda Djibouti oo aan gaarsiin doonaa bay tiri dhammaan dalalka qaaradda Afrika. gudoomiyaha golaha baarlamaanka mudane Maxamed Cali Xumad oo munaasabadaasi ka hadlay sidoo kale waxa uu yiri waxa maanta iskugu yimaanay xafladani oo aanu ku tahadiyadeynayna buuri Marwo Safiya Cilmi Jibriil oo maalmo uun kooban laga joogo kadib markii ay ku guuleysatay buuri jagada gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka midowga Afrika iyadoo wakiil u abuuray dhammaan shacbiga dalalka Afrikada bari. aniga oo ku hadlaya buuri magacayga gaarka ah iyo xukuumadda iyo ku-xildhibaanada golaha baarlamaanka waxaan halkan ka hambalyeeyaa buuri xildhibaan Safiya Cilmi Jibriil guusha ay gaadhay. gudoomiyuhu waxa uu yiri oo kale waxa aan xaqiiqdii ogahay ee dadaalka aad ku gaadhay jagadaasi sare taasina waxa ay suuro gelisay buuri in Djibouti ay xubin buuxda ka noqoto golaha fulinta ee baarlamaanka midowga Afrika adiga oo wakiil u ah barigani Afrika oo dhan. sida wadamada caalamka jamhuuriyadda Djibouti waxaa maanta laga xusay maalinta adduunka ee warasgaarsiinta. xuska maalinta adduunka ee warasgaarsiinta waxaa soo qaban qaabiyay wasaaradda warfaafinta boosaha iyo warasgaarsiinta iyo shirkadda Djibouti Telecom. xuska maalintaasi waxaa ka hadlay wasiirka cusub ee warfaafinta boosaha iyo warasgaarsiinta mudane Cabdi Yuusuf Sugi oo ugu horeyn sheegay in jamhuuriyadda Djibouti dadaal weyn u gashay sidii ay hore u marin lahayd waaxda warasgaarsiinta. waxa uu yiri dalkeenu oo dhaqaalihiisu uu sal yahay waaxda adeega ama serviska waxa uu doorbiday in uu kor u qaado waaxdaas oo dadaal weyn u galay madaxweynaha jamhuuriyadda oo sidii aan u gaari lahayn horumar la isku haleyn karo oo dhinaca warasgaarsiinta ah. casriyeynta kaabayaasha warasgaarsiineed oo ah siyaasadda madaxweynaha jamhuuriyadda waxay si cad uga jawaabaysaa baahida jirta isla kolkaasina waxay si hubaala uga qayb qaadanaysaa buu yidhi horumarka dalkeena hadday noqoto dhinaca shaqo abuurka iyo xoojinta howlgallada shirkadaha iyo fudaydinta qaababka loo heli karo warasgaarsiinta. waxaan ka xusi karaa buu yidhi in shirkadda Djibouti Telecom hoos u dhigayso qiimaha sanadkan. waxaa xusid mudan in la ballaariyay buu yidhi hanaanka helidda teknolojiyadda cusub oo dhammaan la gaarsiiyey goobaha waxbarashada dhakhtarada iyo shirkadaha intaba. taasina waxa ay dabaqaysaa buu yidhi siyaasadda madaxweynaha jamhuuriyadda ee ah in la gaarsiiyo loogana faa'iideeyo dadweynaha teknolojiyadda cusub. taliye ku-xigeenka gaashaandhigga ciidanka qalabka sida Jarnaal Taahir Maxamed Cali oo booqasho shaqo ku jooga magaalada Khartoum ee caasimadda dalka Suudaan ayaa waxa uu halkaasi kula kulmay wasiirka gaashaandhigga ee dalkaasi mudane Ayed Maxamed Axmed ibn al-Awf. waxa kulankaasi uu jarnaalku ku gudoonsiyay dhambaal qoraal ah uu uga siday taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida Jarnaal Zakariya Sheekh Ibrahim. waxaana dhambaalkaasi uu ku saabsan yahay sii xoojinta xiriirka ee iskaashiga militari ee u dhexeeya labada ciidan ee walaalka iyo saaxiibka intaba ah. wasiirka gaashaandhigga ee dowladda Suudaan waxa uu sheegay in jamhuuriyadda Djibouti iyo jamhuuriyadda Suudaan ay wadaagaan xiriir dhow oo sokeeye isla kolkaasina Suudaan diyaar u tahay buu xoojinta iskaashiga u dhexeeya labada dhinac gaar ahaan dhinacyada tababarida dhakhaatiirta iyo qalabaynta dhakhtarka militari ee Omar Hassan al-Bashir ee Djibouti kaasoo ay dhistay dowladda Suudaan.
daawadayaal waxaanu bartamaha ku jirnaa war wixii dalka iyo dibadda laga soo gaaray waxaa nagala socotaan waa tv-ga qaran munaasabada lagu dhaqaajiyey cadadka saddexaad ee casharka tv-ga laga soo daayo ee loogu talagalay ardayda fasalka shanaad iyo fasalka sagaalaad ayaa maanta ka qabsoontay xarunta kiliben ee wasaaradda waxbarashada qaranka iyo tobabarka xirfadaha munaasabadaasi waxaa hormood ka ah wasiirka cusub ee waxbarashada qaranka iyo tobabarka xirfadaha mudane mustafa maxamed maxamuud wasiirku markii uu munaasabadaasi soo gaadhay waxaa halkaasi diran ugu soo dhaweeyey agaasimaha guud ee xarunta kiliben siciid xasan nuur iyo shaqaalaha xaruntaasi ee ka howlgala soo dhaweyntaasi kadib wasiirku waxaa looga waramay darsiyada kala duwan ee ka bixi doona tv-ga qaran isla habeenkani caawa ee fasalada aan korka kusoo sheegnay waxaana xusid mudan in garabgalka ardayda imtixaanada maraysa sanadkan ee casharada tv-ga ay kala socdaan ay qayb ka tahay siyaasadda madaxweynaha jamhuuriyadda ee xagga awoodsiinta waxbarashada qaranka ee dalkeena isla munaasabadaasi uun wasiirku waxaa intaasi kadib uu booqday qaybaha kala duwan ee xaruntaasi kiliben ay ka kooban tahay halkaasi oo macluumaad dheer laga siiyey nahay waan ku raacsan lahay in programkan imika la tusay si fiican loo socotaa dee ilaahayna halila qabto wasiirka waxbarashada qaranka iyo tobabarka xirfadaha mudane mustafa maxamed maxamuud oo halkaasi ka hadlay waxa uu sheegay in ay farxada gaara u tahay ka qaybgalka munaasabadaasi lagu dhaqaajiyey casharada layliska ah ee tv-ga ka baxaya isla caawa oo cadadkiisii saddexaad maraya sanadkan casharadaasi ayaa waxaa loogu talagalay buuri wasiirku ardayda fasalada shanaad iyo fasalka sagaalaad iyo fasalka terminaalka casharadaasi lagu garabgalayo ardayda wasaaradda waxbarashada qaranku ay diyaarisay ayaa ah buuri midda ka jawaabaya siyaasadda madaxweynaha jamhuuriyadda ee hore u dhiga waxbarashada dalkeena wasiirku waxa uu yiri hadaba waxaanu ku faraxsanahay dhaqaajinta barnaamijkaasi oo ku baxday dadaal fara badan xag maaliyadeed iyo xaq qalabeed iyo xaq shaqaba waxaa loogu talagalay buuri inay ka faa'iidaystaan in ka badan 2,000 oo arday ah wasiirku 20,000 oo ardaya daawadayaal raali noqda wasiirku waxa uu ugu dambeyn u mahad celiyey dhammaan xubnaha soo diyaariyey barnaamijkaasi waxbarasho ee ardayda loogu talagalay ugu dambeynna xagga wararka caalamka qodobkii aan kusoo sheegnay qodobada warka qaxootiga adduunka hay-adda qaxootiga adduunka ee UNHCR ayaa walaac ka muujisay waxa ay ugu yeedhay xilkas darada wadamada reer Yurub ee ka maagaya qaabilaada iyo magansiinta qaxootiga kusoo qulqulaya hay-addu waxa ay ugu yeedhay beesha caalamka in ay mas-uuliyadeeda qaadato si looga hortago dhibaato bini'aadantinimo oo caalami ah hay-addu waxay sheegtay in 20 malyan oo qaxooti ah oo dalbay magan laga qaabilay oo kaliya 1% sanadkii hore afayeen u hadlayna hay-addu waxa uu sheegay in loo baahan yahay istaraatiijiyad shaqaynaysa oo lagu badbaadiyo qaxootiga Yurub beegsanaya sanadkii 2015 malyan oo qof ayaa iska dhiibay wadamada Yurub hase yeeshee tiradaas xilligan hoos ayay u dhacday bid kadib kolkii heshiis soodimaha kala saxeexdeen midowga Yurub iyo Turkiga qodobka ayaa daawadayaal ugu dambeeyay war wixii dalkii dibadda naga soo gaaray kulankeena kan xigeenta ka horeysana waxaan idinku dhaafaynaa nabadgelyo iyo amaano Allah